urur siyaasadeedka xaqsoor oo maanta soo gunaanaday ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka Somaliland ayaa soo bixi abid ugu weyn ka sameeyay magaalada Laascaanood waxaana taageerayaasha wata gaadiidka waaweyn iyo kuwa yaryar ay ku soo gaafareegeen wadooyinka halbowlaha magaalada Laascaanood taasoo wacdala laga yaabay ay ka sameeyeen waxaana soo bixi maanta kala soo qayb galay madax sarsare oo ka tirsan urur siyaasadeedka xaqsoor oo ay ka mid yihiin wakiilka qaaradda Yurub ee xaqsoor wakiilka khaliijka carabta ee xaqsoor wasiirka hore caafimaadka Somaliland Cabdi Haybe sidoo kale waxaa si rasmi ah maanta ugu soo biiray urur siyaasadeedka xaqsoor wasiirkii hore ee ganacsiga Puntland Xasan Farax Jaamac Xasan Geerish oo sheegay inuu hil Yahooba la garab taagan yahay urur siyaasadeedka xaqsoor iyo waliba ganacsadaha weyn Maxamed Jibuutaawi oo shaaciyay inuu taageerayo urur siyaasadeedka xaqsoor dadweynaha oo muga tiradoodu qaadi weeday barxadda hore ee xafiiskooda iyo waliba fagaaraha dawladda hoose ayaa isugu tagay xarunta weyn ee shirkadda Jibuutaawi oo maanta qayb ka ahaa ololaha urur siyaasadeedka xaqsoor sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo kooxo kala duwan halkaasi ay isla heleen waxaana isu soo baxa urur siyaasadeedka xaqsoor maanta ka noqday magaalada Laascaanood mid aad loo hadal hayo barigii hore loo oran jiray dawladii hore waxay oran jireen isbedel doon baanu nahay oo beenowday waxay isu bedeshay xumaan iyo ka sii xun innagu waxaynu bedelaynaa walaalnimo wax wada lahaasho midnaan iyo sinaan waxaynu ballana ma dheeraynayo waxaynu ballana in Laascaanood amba goboladeenna aynu ka bedelo noloshan ay ku jirto ee aad moodo jeel weyn waa lagu celceliyay yaynu dooranaynaa soo xaqsoor ma aha sool iyo sanaagi cayn soo xaqsoor ma aha waxaan halkan u taaganahay aniga iyo taageerayaasheeda inaanu samayno isbedel dhab ah iyo midnimada laga muuqata aanu maanta u taaganahay dadweynahan sharafkana waxay ku codanayaa inaad codkaysiisaan si aanu dhab u joogo waxaan kuu sheegayaa dadka sool sanaad iyo cayn inay Soomaaliya gasho dimuqraadiyaddaasi kama takana habeeraheeda way kala abtirsatay carabkooda iyo astaantooda waa taacadaad iyo yimidda xisbigooduna waa xaqsoor sool meel kastuu joogo ama sool iyo sanaad horta waa inuu waqteeya codkiisa dhiibaa waana inuu arkaa cidda uu ku leeyahay baashuu reereerana waa tahay dawladda waa tahay marka waxaan leeyahay anigu saacaddaa laga bilaabo waxaan ahay xaqsoor waxaan horta taageersanahay maanta laga bilaabay xaqsoor ugu badanna waxaan ku qabanaya xaqsoor dadka sool iyo sanaad iyo cayn dhammaan shaqaalahayga waxaan farayaa in ay ururka xaqsoor doortaan xaqsoor ha noolaato ilaahay waxaanu ka baryaynaa ururka guulaysta inuu xaqsoor noqdo kartaa maxay reer Laascaanood maanta inta leeg ugu soo baxeen waxaan idinla wadaagnaa dareenka maanta reer xaqsoor ama reer Laascaanood wuxuu kaga duwan yahay musharaxiinta ay ka dhaadhiciyaan ama kaalan yaryar siiyaan si dadku marka ay codaynayaan loo arko oo aanay ku xumaanin dadka wadadooda waxaayaan odayaasha ha noqoto haweenka ha noqoto sool iyo sanaag iyo caynow waxa aan idiin sheegayaa in la yidhi gobolka awdal baa ka dad badan sool iyo sanaag iyo cayn maanta waxaa la rabaa inaad codkiina soo bandhigtaan oo xaqsoor soo baxo oo muruqiina la ogaado waxa weeyaan maanta waxaan idinka baahanya reer Soolow inaa xuduudiina aabujisaan musharaxa labaad baa leedihiin madaxweyne waxa weeyaan baashu inay ka soo wareegto galbeedka oo koolada watakisirada ugu dambeeyey gobolada bariga sool iyo sanaag dawladii soo maray gurmeeyeen urur siyaasadeedka xaqsoor ayaa ka mid ah ururada sida weyn markaasi taageerada xoog leh ku leh magaalada Laascaanood kaasoo musharaxa madaxweyne ku xigeenka uu ka yahay muwaadin ka soo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn
cabdiraxmaan cali ducaale home cable tv laascaanood